madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya galinkii dambe ee maanta ayaa ka hadlay isbedelada dhanka horumarka ee ka jira wadanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in rajo weyn laga qabo hiigsiga 2016 in doorashooyin ay ka dhacaan dalka isla markaana maalmaha soo socda la qaban doono shirar wada tashi ah oo arrimahaasi looga hadlayo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan in aanay ku niyad jabin waxyaabaha siyaasadeed ee bariyahan ka dhacaya dalka Soomaaliya. dalkani waa ka dhamaatay rabitaankii ama cid ku fikiraysa haday jirtay diktatoriyad inta laga abuuro in uu soo baxo xukunka nin iskale ama dad gaaro iskale ama gobollo gaaro iskale xilligaasi uu soo dhamaaday. maanta Soomaaliya kama suuroodo diktatoriyad inay ka dhisanto. maanta Soomaaliya kama suuroodo maamul aan raali laga ahayn inuu talada haayo marna kama suuroodo. waxaan ka shaqaynaynaa oo aan ku mashquulsanahay waxay tahay inaan dadka Soomaaliyeed u diyaarino qawaaniintii maxaan ku iraahdaa iyo shuruucdii cayaarta dawladnimada ee cayaarta siyaasadda lagu wada cayaari lahaa oo aan la isku dardari lahayn la isku lana dhici lahayn la iskuna daraawsan lahayn. marka ma awoodi karno in maxaan ku iraahdaa waxaasina laga mashquuliyo ma awoodi karno in maxaan ku iraahdaa jilbaha inta nala qabto meesha aan joogno nalagu haayo. xafiisyada dawladda haddii aad shacabkow aad kala kulantaan waxaadan raalli ka ahayn inaad kala hadashaan ama aad ka hadashaan aad xaq u leedihiin. laakiin haddana macnaheedu ma aha maalintii u dambeysay wixii inay kala daateen horaan u soconaynaa. haddii baarlamaankeennu marka uu shaqaynayo buuq uu ka dhex yeero macnaheedu maaha in wixii kala daateen in meesha lagu kala tegay. waa dimuqraadiyaddii oo samaysmayso dadaalkii iyo dawladnimadii oo dhismaysa waaye. dadka Soomaaliyeed waxyaabahaas dhacdooyinka oo ama aan soo sheegay qaarkood iyo kuwa kale badan haddii ay arkaan waxaan rabaa in aanay ku niyad jabin inaanay u arkin in ay wixii kala dhacayaan. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dadaalo dheeri ah oo lagu doonayo in lagu xoojiyo arrimaha maamul u sameynta gobolada dalka. dowladdu waxa ay wadaa dadaalo dheeri ana ku wadaa samaysanka maamulada magaalada Baydhabo muddo dheer maamulka ka soo socday muddo kooban oo hakad yar ayaa dawladdu gelisay si loo sameeyo wada tashi looga wada tashado waanu socdaa wada tashigaas dhawaana processkaas dib ayuu haddana u hinqanaya u dhaqaaqaya haddii alla yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxaan guulo dadka deegaankaas degan ay raalli ka wada yihiin dawladduna ay ku taageerto. waxa muhiimka oo dawladdu ay daba socotaa mar walba waa rabitaanka dadka waana fududeynaysaa waana ka shaqaynaysaa. dawladdu waxay ka shaqaynaysaa in loo dhamaado samaysanka maamulka ciddii ka maqan lagu beeriyo ciddii ra'yi qabta ra'yigeeda la dhageysto kadibna horay loo socdo oo maxaan ku iraahdaa maamulkii oo dhismo haddii alla yiraahdo. sidoo kale gobolada dhexe oo ayadana maxaan ku iraahdaa is-afgarad laga gaaray samaynta maamulkooda dardar cusub ayaa la gelinayaa usbuucyada iyo maalmaha soo socda haddii alla yiraahdo. ayaduna waxaan rajaynaynaa muddo dhow inuu halkaa ayadana ka soo baxo oo ka dhismo maamul. inta dhiman ee gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo Banaadirna wada tashiyadooda way socdaan dhawaan ayagana tallaabo cad oo hor u socoto ayaa laga soo qaadi doonaa. ugu dambeynna madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay in isku dhaf lagu sameeyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana hawshaasi la bilaabi doono dhawaan. dowladda Soomaaliyana ay aad iyo aad ugu xeydxeydan tahay halkaas shay inay maalmaha ka mid xaqiiso waa maxay waa isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed ciidamada inta federaalka hoos timaado ee ah ciidamada federaalka ee ciidamada qaran ah laga soo bilaabo Raas Gambooni ilaa lagu geeyo Raas Casayr. dowladda Soomaaliya waxay rabtaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliiska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ciidanka asluubta heer qaran ah oo dhisan in la helo. waa dhisan yihiin haddaba laakiin la isku daray oo ciidan kasta oo meel joogto koox unug kasta koox kasta yacni horin kasta yacni iyo inta ka sii badan ciidamada u dhammaan markay meel soo istaagaan in laga wada arki karo Soomaaliyaan rabnaa. Soomaaliya inay ka dhex muuqato dhammaan oo laga wada arki karo gobolkan kii ka yimid gobolkaa kale kii ka yimid kan meesha ka yimid reerkan kii u dhashay reerkaas kii u dhashay dhammaan ayagoo isku mid ah oo hal ciidan ka wada tirsan hal unug isla ah hal koox isla ah hal horin isla ah hal yacni urur isla ah oo guuto isla ah oo saas u wada jiraan rabnaa in la arko hoggaanka ciidamadaas sida noqon doona asagana haddii alla yiraahdo.
shirka jaraa'idda madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo arrimo badan uga hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dowladnimada Soomaaliya ay u hirgeli lahayd isla markaana horumar ballaaran u sameyn lahaa dalka. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV.